liverpool ayaa fiidka caawa soo dhaweynaysa kooxda madaxa loo geliyo taajka qaaradda Yurub ee Chelsea waana ciyaartii labaad oo horyaalka ah oo ay jamaahiirta Reds soo buuxin doonaan garoonka aan la jeclaysan aadistiisa ee Anfield Road labadan kooxood waxaa loo tixgelin karaa durba inay ka mid yihiin awoodaha fasalkan dagaalka adag u gali kara hanashada horyaalka Premier League waddanka Ingiriiska walow wadada ay dheer tahay haddana sida ay haatan u muuqdaan waa kuwa awood leh yaa ku soo laabtay labada kooxood yaase seegi kara kulanka maanta ka dhici doona Anfield maxaa laga yiri dagaalka awoodda la isku adeegsan doono ee dhexmari doona Romelu Lukaku iyo Virgil van Dijk waa maxay rikoorka ay Blues ka heshatay garoonka Anfield saadaasha qaar ka mid ah khabiirada kubadda cagta iyo shaxda aan dooran lahaa haddii aan tababaro u ahaan lahaa labada kooxood ee Blues iyo sidoo kale Reds muuqaalkan yar ee kooban ayaan su'aalahaas kaga jawaabi doonaa si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan mawduucan haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqato bogeyga magacaygu waa Cabdirashiid Maxamuud Nuur wixii la joogay ka tagisa way ku furan tahay waxaan jeclaan lahaa inaad ila saaxiibto jamaahiirta Liverpool ayaa farxad dareemi kara marka loo sheego in Andy Robertson uu ku soo bilaaban karo kulanka maanta wuxuuna ka soo kabanayaa dhaawac anqawga ah sidoo kale Fabinho ayaa tababarka ku soo laabtay waana suuragal in kulankan uu ku lug yeesho balse waa inay iska iloobaan inay helaan ciyaaryahanka la yiraahdo James Milner oo ah madaalaha kooxda dhanka Blues waxay dib u heli karaan faraskooda N'Golo Kante kaasoo anqawga dhib ka qabay waana suuragal inuu ku soo bilowdo ciyaarta Anfield sidoo kalena Jesper Balqueta ayaa safan kara kulankiisa 300 ee horyaalka Premier League Pulisic lama falgeli kara kulanka mana ka mid ahayn kooxdii u safartay Liverpool qabiirka BBC da Mark Lawrenson kulankan waxa uu ku saadaaliyay 1-1 barbara ah oo ay labada kooxood ku kala tagi doonaan Blues kuma cusbay inay Anfield ku soo badiyaan bishii Maarso ee sanadkan ay hal eber ku soo dileen Reds waxayna ahayd guushoodii toddobaad ee horyaalka waana kooxda labaad ee Anfield ku badisay kulamada ugu badan Liverpool guul ay gaarto waxay ka dhigi kartaa maanta kooxdii ugu horeysay ee saddexdeeda kulan ee ugu horeeya heerka koowaad ee Ingiriiska guul gaarta 4 xilli ciyaareed oo xiriir ah laba jeer ayay dhacday in Liverpool wax gool ah aan laga dhalin saddexdooda kulan ee ugu horeeya horyaalka Ingiriiska Diego Jota waxa uu ku biiri karaa liiska kooban Robbie Fowler Sadio Mane iyo Daniel Sturridge kuwaasoo waqtiyo kala duwan ay u suura gashay in saddexda kulan ee ugu horeeya horyaalka Premier League shabaqa soo wada taabtaan Mohamed Salah oo laba gool ku sheegtay Blues waxa uu laba gool u jiraa inuu noqdo xidigii labaad ee Afrika ka soo jeeda kaasoo 100 gool ka dhaliyay horyaalka Premier League Didier Drogba ayaa kaga horeeyay kaasoo 6 gool kaliya ka horeeyay Virgil van Dijk waa inuu maanta difaacdo rikoorkiisa wanaagsan ee Anfield sidoo kooxdan u yimid wax gool daraa kuma gudoomin Anfield kulamada horyaalka 48 ciyaarood ayuu ciyaaray 43 kamid ah uu guuleystay 5 kamid ah barbara ay u galeen Blues waxay isha ku haysaa rikoor macquul ah 3 jeer ay hore u dhacday in shabaqooda la taaban 3 kulan ee ugu horeysa horyaalka markii afraad ma ku samayn karaan Anfield waa su'aal jawaabteeda laga sugi doono Chelsea 5 gool ay fasalkan bilowga dhaliyeen waxaana kala dhaliyay 5 ciyaartoy oo kala duwan mana jiro xidig 2 gool dhaliyay fasalkan macallin Thomas Tuchel ma jecla inuu wajaho Jurgen Klopp oo ah tababaraha Jarmalka ay leeyahay kooxda kubadda cagta ee Liverpool 9 kulan ayuu guul daro kala kulmay 15 ciyaarood oo uu wajahay ninka ay dhalashada wadaagaan 3 gool iyo 3 barbara ayaana u heliya aan kuugu daro labadii ciyaarood ee ugu dambeysay ee sarkaan labadan macallin Tuchel ayaa badiyay labada kooxood ee Chelsea iyo PSG isagoo wata ayuuna guul ka gaaray kooxda kubadda cagta ee Liverpool afar isku dhac ayaa la saadaalinayaa inay go'aamin doonto natiijada ciyaarta Anfield ka dhici doonta waa sida ay qabaan culimada kubadda cagta Virgil van Dijk iyo Romelu Lukaku wixii dhexmara waxay saameyn ku yeelan karaan ciyaarta waana meesha ugu weyn oo la leeyahay waxay labada kooxood siin kartaa furaha ciyaarta dagaalka khadka dhexe Blues waxay dhexda soo gelin doontaa sida la qiyaasayo N'Golo Kante iyo Jorginho oo si madax bannaan ay ula shaqayn karaan garbaha daafaca iyo kuwa weerarka halka Jurgen Klopp isna laga yaabo inuu isku keeno Henderson, Thiago iyo sidoo kale Fabinho waxaana la leeyahay sida khadka dhexe loogu kala adkaado ay natiijada noqon kartaa mararka qaar dagaalka saddexaad waxa uu ka dhici karaa garbaha weerarka dhanka Liverpool Sadio Mane iyo Salah oo la raaciyo Jota ama Firmino ma ku durdurin doonaan saddexda dambe ee daafaca Blues iyo labada garbaha ah ee Alonso iyo James oo loo badanayo inay ciyaarta ku soo bilaaban karaan waxa afaraya oo isku dhaca afraad ah maskaxda ay isticmaali doonaan Klopp iyo sidoo kale Tuchel yaa rogi kara kulanka midkeesa il duufi doona inta ay ciyaarta socoto ciyaartoyda la dhayalsanayo balse kulankan saameynta ku yeelan kara waxa kamid ah Kai Havertz, Thiago Alcantara, Mason Mount iyo haddii fursad ay helaan Mateo Kovacic iyo wiilka daadira ee Liverpool ee Elliot shaxda aan dooran lahaa kulankan labada dhinac waxa ay kala yihiin dhinaca Blues waxaan dooran lahaa Eduardo Mendy, Chalobah, Azpilicueta, Rudiger, Alonso, James, Kante, Jorginho, Kai Havertz, Mason Mount iyo Big Room Romelu Lukaku dhanka Liverpool waxaan dooran lahaa Alisson Becker Joel Matip, Virgil van Dijk, Robo, Arnold,
Thiago Alcantara, Jordan Henderson, Fabinho, Diego Jota, Mohamed Salah iyo sidoo kale Sadio Mane. marka ay ciyaaraha ka dhacayaan garoonka Anfield waa kuwa la jeclaysiin la daawado waxayse ugu xamaasad badan tahay marka uu kulan weyn ka jiro garoonkaas. Romelu Lukaku ma sii wadi doonaa goolashiisa mase noqon doonaa kan loogu hadalhaynta badan yahay. Virgil van Dijk ma soo afjari doonaa gurbaanka loo tumayo Lukaku. Diego Jota oo ay jamaahiirta Reds ugu yeeraan Diego Goal masraxiyadiisa sidee noqon doontaa. Salah ma ciqaabi doonaa kooxdiisa hore mar kale. Mount iyo Havertz ma isku qori doonaan buugga Blues yaa noqon doona geesiga ciyaarta magaciisa lagu hadalhayn doona baraha bulshada mise kulanka waxa uu noqon doonaa mid lagu caajiso oo ay taageerayaasha si humaag leh uga falceliyaan. jawaabaha su'aalahaas oo dhan waxay ka soo bixi doonaan 90 daqiiqo ee kulanka Anfield waxaana dhexda ka taagnaan doona garoonka Anfield garsoore Anthony Taylor. aad baan kaaga mahadcelinayaa haddii aad nala socotay ilaa dhamaadka ka falceli muuqaalkan oo nala wadaag aragtidaada ku aadan ciyaarta ka dhici doonta garoonka Anfield. soo dhawow mahadsanid.